بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد وترسيني تفسير القرآن كها رمضان كأنو تلقلي جزء عما ودرسي سدحات هي سورة عبسة أيضا suuradihii labadii suuradood ka horeysay la mid tahay waa suura makiya waxay soo degtay inta nabigu sallallahu alayhi wasallam Makka ka hijroonin quraanka marxalada soo degayna waa ka soo sheekeynay waxyaalaha mabaadiida uu ka hadlo inta badan suuradani qaybteeda hore waxay ku bilaabanaysaa عنان أسلوبيسن أما لطيفا ونبي صلى الله عليه وسلم لو تشيدينيو ودعدو نبي صلى الله عليه وسلم يسقو سي يسيري كدبنا الله تبارك وتعالى سيدو نبي صلى الله عليه وسلم وتوسينيو أي كوب الله بنيسا كدبنا waxaa ku xigi doonto laga warramayaa quraanka kariimka iyo sharaftiisa ilaahay aayaadkiisa iyo sharafta ay leeyihiin iyo inay malaa'ikta gacmahooda ku jirtaan suxufta quraanka kariimka ama aayaadka rabbi qaybta saddexaad waxaa laga hadli doonaa bini aadamka iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nicmooyinka uu galay laga soo bilaabo abuuristiisa adduunka markuu joogo iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala sidoo ugu diyaariyay wuxuu ku noolaan lahaa iyo markuu dhinto xataa sida loo karaameeyay oo aan dhulka korkiisa looga tagin meydkiisa xataa yaani la aasay oo qabri loo sameeyay intaas oo dhan baa laga soo hadlayaa kadib waxa laga hadlayaa bini aadamka iyo sida ilaahay cuntadiisa u diyaariyo waxa uu ku nool yahay noloshiisa ku tiirsanto cuntadiisa ay ku timaadaa ayaa laga hadlayaa sida ilaahay u diyaariyay tabaaraka wa tacaala aakhirka suuradu waxay ku gabagaboobi doontaa oo ka hadlaysaa nolosha dambe aakhiro iyo dadku say u qaybsami doonaan xaaladaasi markay timaado dadku say noqon doonaan iyo meesha lagu kala dambeyn doono ayay suuradu ku gabagaboobi doontaa insha Allah tacaala Allah marka tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay cabasa nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu waji tubay وتولى وانا جيدسدي وجتوبك waxa la yiraahdaa in ruuxu markuu wax qoonsado wajigiisa ayaa ururaya jabhada kore wajigiisa laga garanaya marka taas la yiraahdaa wajitubka la yiraahdaa waa jeedsaday an jaahu inuu u yimid darteed al-a'ma ki indhahala wama yudrika maxaa ku ogeysiyay nabi maxamedow ninka indhahala لعله إنه مديه أما لعله وحو مديه يتزكى إنه إصداهريه أو أما سيذكر إنه وانقاته أو فتنفعه أي أنفعه الذكرى واند أنفعه أما من روح استغنى ديقتومي أو أن يعني الصبع أركب إنه صنعد أباهنين فأنت أذو له إساقاس أيات تصدى ayaad yaani waxa way u jeedsanaysaa ayaad qaabilaysaa ama u banbaxaysaa wama alayka korkaagana ma ahaanin alla yazakka inuusan isdaahirinin oo uusan iimaanka isku daahirinna adiga kuma saarna adiga mas'uuliyadaada ma aha korkaagana ma ahaanin wa amma man ida jaa'aka ku yimid maxamedow yas'a asagoo degdegaya oo khayr doona wal xaal huwa isagu yakhsha uu baqayo isagoo baqdini wado khayr doon oo degdegaya haduu ku yimid fa anta adugu anhu xaqiisa ayaa talaha ka mashquulaysa yaani waxa weeyaan waad ka jeesanood waad ka mashquulaysa intaasi hadda aynu akhrinay waa inta aynu niri waxay ku soo degtay qisadaasi ama dhacdadaasi nabigeenu la kulmay sallallahu alayhi wa alihi wasallam sida ay tilmaamayso ummul mu'miniina Aisha radiyallahu ta'ala anhuma waxay leedahay suurada cabasa wa tawalla la yiraahdo
waxay ku soo degtay ninka la yidhaahdo ibnu ummi maktuum ma cabdiraxmaan baa ma cabdullaahi baa waa la yidhaahdaa ibnu ummi maktuum alacmaa ee indhaha la'aa bay ku soo degtay bay tiri see bay ahayd qisadaasi rasuulka ayuu u yimid ninkaasi nin saxaabi ah oo ka mid ahaa raggii aadaami jiray weliba salaada subax aadaankeedu adimi jiray nin markii dambena yani saxaabada waaweyn ka mid ah buu ahaa qiimo badan ku fadhiyey ninkaasaa nebiga u yimid sal alla alayh wasalam markaasaa wuxuu uhi yaa rasuul allah arshidnii rasuulka ilaahay i hanuuni rasuulka ilaahay wax ii sheeg waxi bar buu leeyahy rasuulka markaa waxaa la jooga sal alla alayh wasalam nin ka mida odayaashii quraysheed raggii uun bulshadu qadarin jirtay quraysheed oo gaal ah ayaa markaa nabiga la jooga sal alla alayh wasalam oo rasuulku wax u sheegayaa rajana ka qabo inuu bal soo hanuuniyo wax ka yeelo nabigu sal alla alayh wasalam indhoolkiibaa ku qayliyey oo yidhi yaa rasuul allah arshidnii u dhawaaqay dheh rasuulka ilaahay irshaadi rasuulka ilaahay hanuuni wax ii caddee wax ii sheeg buu leeyahy rasuulkuna ninkanuu ku mashquulsan yahay markuu intaa yidhi ayuu rasuulku markaa ka jeesaday indhoolkii ninkii kaluu ku jeesadoo qaabilay ee hadalku u socday rajadana uu ka qabay markaasi inuu soo jiido oo bal u xaqa qaato markaasuu nebigu wuxuu ku leeyahay ninkii isaga ahaa ee odayga ahaa ee gaalka ahaa ataraa maa aquulu ba'san hadalka aan ku leeyahay niyo waxaan kuu sheegayo ma wax dhibaa ku jira asaguna uu leeyahay maya intaad ii sheegtay hadday arrintu tahay wax dhiba ma laha markaasaa aayadahani soo degeen marka nebigu sal alla alayh wasalam ijtihaadkiisi iyo dadaalkiisu meel buu ku jeedaa wuxuu rabaa ninkan indhoolka ah ee muslimka ah ee arrinkiisa inuu u dambeeyo laakiin bal ninkan gaalkaee odaygay rajada uu ka qabo haddii uu soo islaamana uu isleeyahay dad badan buu sabab u noqon karaa in iyaguna soo islaamaan nebigu saasuu istusayey sal alla alayh wasalam markaasuu isaga isku mashquuliyey kii indhoolka ahaayee dhawaaqayana nebigu waa ka jeesaday sal alla alayh wasalam arrintaasaa marka nebiga sal alla alayh wasalam waxoogaa canaan asluubaysan oo latifan ayuu marka rabbi u jeedinayaa tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa muxameda sala allahu calayhi waalihi wasalam qur-aanka marka way ku timaadaa nebigu sal alla alayh wasalam mawaaqifta qaarkood inuu arrini la qumanaato markaana waxyi cad oo hagaya uusan jirinoo masaladaa khaaska ku saabsan uu ijtihaadayaa marka nebigu sibaa la qumanaanayso isleeyahy sidanaa fiican sidii uu marka ku tilaabsanayaa nebigu sal alla alayh wasalam haddii markaasi waxoogaa sidaa uu nebigu damcay waxoogaa laga fiican yahay marka waxyi baa markaa imaanaya oo nebiga toosinaya sal alla alayh wasalam oo saxaya tani marka kuwaasay ka mid tahay qur-aanka meelo kale ku timid waxaa ka mid a nebigu sal alla alayh wasalam munaafiqiintii yani waxa weeye ayaa u yimid dagaalkii marka loo socday tabuuk xaaladuna adkayd waxay idan bay weydiisteenoo fasax bay weydiisanoo fasax bay dhaheen asagoo nebigu sal alla alayh wasalam arrinta yani warkiiba fasax buu iska siiyey idan buu siiyey cafa allahu canka lima adinta lahum xataa yatabayana baa layidhi alla waaba ku cafiyee maxaad ugu kaadin weyday ood u idantay baa layidhi waxaa ka mid a maalan haniimada dagaalkii beder waa kuwii nebiga sal alla alayh wasalam waa kii dagaalkii beder ku adkaaday quraysh kaga adkaaday waa in kii maxaabiis fara badan ka soo qabsaday markuu ka soo qabsaday maxaabiistii see la yeelaa yaa laga wada hadlay marka isaga iyo asxaabtiisii raggii la taliyaashiisa aha nebiga sal alla alayh wasalam marka ninna wuxuu soo jeediyey ha la laayo ninna wuxuu soo jeediyey aynu madax furasho ka qaadanno nebiga sal alla alayh wasalam madax furashadii buu waafaqay madax furashaa laga qaatay markaana haniimada iyo xoolaha gaalada laga furto inay bannaantahay inaysan bannaanayn wax daliila ma yaalla markaa oo la raaco laakiin way ku ijtihaadeen waa ka marka fii suurati tawba aakhirkeeda ilaahay fii suurati alanfaal aakhirkeeda waa ka rabbi tabaaraka wa tacaala marka kaga hadlay oo arrintaasi nebiga sal alla alayh wasalam markaasi iyadana canaantu ku timid way macnaha maa kaana lilnabiyi waaladiina aamanuu maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asra xataa yudqina fi lardi sidaas wey marka usluubkaasi qur-aanka meelo dhowruu ku yimid haddana maca daalika marka nebigiisa uu canaananayo alla tabaaraka wa tacala canaan u jeedinayo ama la toosinayaba usluubka loola hadlayo waa usluub aad u latifan waay usluub aad u usluubaysan oo qurux badan ayaa loola hadlaya taasay marka qisadaasi ayay ka hadlaysaa allah tabaaraka wa tacaala marka wuxuu leeyahay oo murtida hadalku uu yahay ninkan indhoolkee khayrdoonka ah
ayay ahayd inaad mudnaanta siiso kan deeqtoomay ee gaalka ah ee la kari la'yahay inuusan istaahirinoo iimaan qaadanin adiga kumaba saarnaba in calayka illa inaad gaadhsiiso unbay adiga ahayd haddaad gaadhsiisay intaa ka badan inaad isku dhabarjabisa maba ahaynba kan khayr doonka ee ku doonahaya ee wanaagga soo doontay kanay ahayd inaad mudnaanta siiso hadalku saasuu u dhacaya cabasa marka waa weji tubay nebigu sal lla lay slam markuu indhoolkii u yimid isagoo sidaa u mashquulsan ayuu xoogaa wejigu yani kahashadii baa wejigiisa laga dareemay waa weji tubay nebigu sal lla lay wasalam watawallaa waana jeesadayoo indhoolkiibuu ka jeesaday an jaa'ahu inuu u yimid darteed buu u jeesaday ama u weji tubay an jaa'ahu inuu u yimid daraaddeed alacmaa kii indhaha la'ah culimmadu waxay yidhaahdaan maxaa magaciisa loo sheegayo kii indhaha la'aa loo yidhi waxay leeyihiin waxaa meeshaa ku jirta isaga laftiisa cudurdaarkiisaa la muujinayaayo haddee inuu nebigoo mashquulsan isaga laftiisu u dhawaaqaayey soo khalad maaha marka waxaa la leeyahy wuuba indhala'aaye in lala joogo nebiga iyo inuu cid la hadlayo iyo indhool buu ahaa marka kelimada alacmaa in la cabiro sifadiisii laga cabiraayey isagaa loo cudurdaaraya macnaha kii indhahalaa inuu u yimi daraaddeed ayuu nebigu u wajitubo u jeesaday wamaa yudriika baabanka le hadalkii baa toos nebiga loogu jeediyey wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey nebi maxamedow ninkan indhoolkaa xaalkiisa maxaa ku ogeysiiyey lacalahu inuu wuxuu mudan yahay yatazakaa way inuu isdaahiriyo oo sharaa'icda iyo cilmiga iyo waxaad u sheegayso inuu qaato isku daahiriyuu mudan yahay ayb aw amase yadakaru inuu waano qaato ayuu mudan yahay oo fatanfachu markaa ay anfacdo addikra waanadu ay anfacdo wacdiga iyo waanada inuu wax ku qaato mudan yahay marka waa nin doonaya inuu isdaahiriyo oo diyaar ah wacdiga iyo waanada iyo waxaad barayseed u sheegaysana intifaacsanaya marka kan waay kanay ahayd inaad muxuu ahaaye xaalkiisaasi maxaad ka og tahay waay markaad ka jeedsanayso amaa man cidda istaqnaa deeqtoontay yani waxa weeyaan waa gaalkan uu nebigu ku mashquulsan yahay ama gaalo badan badhe odayaashan uu ku mashquulsan yahay ee waxbaba rabinba inay waxay isu arkaanba inay waxaan oo dhan ka deeqtoomaan inaysan u baahnayn bay u arkaan sidaas daraaddeed mid deeqtoomay oon kuuba baahnayn inuu ilaahay u baahan yahayna aan isuba arkinba diintaada inuu baahan yahay aan isu arkinba inuu gaadhayba macnaa isku fillaanba gaadhayba mid isu arka amaa man istaqnaa fa anta adugu lahu isaga ayaad tasaddaa ayaad u banbaxaysaa ama ayaad qaabilaysaa kaasaad ku jeedsanaysaayoo qaabilaysaa wamaa calayka korkaaga ma ahaanin ba'sun waay wax baasa korkaaga ma ahaanin wax dhiba kaa soo gaadhi maayo anlaa yazakaa inuusan isdaahirinin hadduusan isdaahirinin oo iimaanka qaadanin oo gaalnimadiisa iyo wasakhda ku dhinto adiga waxba kaa soo gaadhi maayo adiga nebi maxamed sal alla alay wasalam wax kaa soo gaadhaya haba yaraatee ma jirto sababtu maxay tahay in calayka ila albalaaq waay korkaaga inaad gaadhsiisood u sheegto unbaa mas-uuliyaddeedu ku saaran tahay waay waad u sheegtay inaad kaga gaabsatay ahayd ha isku sii dhibin marka ha isku sii taxallujin ha isku dhabar jabin wa amaa man cidda jaa'aka kuu yimid waa indhoolkii yascaa asaga oo degdegaya yani waxa way fii dalabi alkhayr waay khayrka raadintiisu u degdegaya wanaagdoon waay arrintaasu u degdegaya walxaal huwa isagu yakhshaa uu baqayo baqdin ilaahay baa ku jirta isagoo baqaya yuu haddana degdegaya oo wanaagdoon yahay kaa isaga ah fa anta adugu canhu xaggiisa ayaad talahaa ayaad ka mashquulaysaa yani waxa weeyaan talahaadu bimacnaa tatalahaa waa yani waad ka shuqloomaysaayo kaasaad macnaha waxa way u jeedsanaysaa ku mashquulaysaa kanna waad ka mashquulaysaa waad ka jeedsanaysaa tatashaaqal waay waad iska mashquulinaysaa waay arrintaasi marka intaasi waa inta hore oo waxay ku saabsan tahay qisada indhoolka waxayna tilmaamaysaa mar walba dadka khayrka u diyaarsan ee wanaagga doonaya ee iimaanka doonaya ee diintan raba ayaa mudnaanta leh iyagaa mudnaanta la siinaya amaa dad aan uba diyaarsanayoo sii jeeda sax digniinta waa la gaadhsiin laakiin hadday isqabato kanaa mudnaanta leh kan diyaarka ah ee khayrka doonaya ee soo diyaargaroobay ee wanaagga u ordaya kaasaa wakhti la siin kaasaa mudnaanta la siin asagaa mudan in la siiyo waay sidaas way darsiga laga qaadanayo qisada iyada
كلا إنها تذكرة كلا كتشوغي أرنتا تشوشي إنها إيضو تذكرة إنها ضميرك وحقون نقوم بإليه سورة دني أما عضدة أما واندة الصورة أو العظة إنها سورة دني أما إنها واندني تذكرة ووان يعني وحوي سورة دني ووان ويي وانينيسا dadkoo dhan bay waaninaysaa waanin waay waa wax sheeg faman ruuxi shaa doona dakarahu wuu xusaa cidii doontaayay way xusi dakarahu yani suurada ama quraankii oo siyaaqa laga fahmayo ayaa loo celinayaa iyo ilaahay aayaadkiisa tabaaraka wa tacaala dakarahu quraankii waa xusaya waa akhrinaya waa ku dadaalaya waa kuwaana qadanaya waa baranaya waa ku dhaqmaya dakarahu quraankii cidii rabtaa qaadan طبعا rabitaankiisa kaliya kuma xidhne cidii rabtaa allana la rabo wama tashaa'una illa an yasha Allah laakiin marka hore khayrka inuu adoonku qaato uu galo oo intifaacsado waa inay ka timaado dadaal xaqiisa waa inuu diyaar garoobo waa inuu asagu diyaar u yahay waa inuu istaahilo allana tabaaraka wa tacaala markaasi adoon diyaar ah oo istaahila الله تبارك وتعالى وأكل مينيا وسينا يا مراد كي يسوي معنا فمن شاء ذكره في صحف مكرمة سورة دني أما قرآن كورن بله أيام مركل لقى والرمي يعني وحويان أما سورة دني أما قرآن كور لقى فهمي السياق لقى فهمي في صحف بو هذي وراق دحضت مكرمة والله ما موصي ولا كرامي إله أكتيس لقو كرامي مرفوعة والله كوريا لي oo laga koryeelay qadarkeeda la sare yeelay mutahharatin oo la daahiriyay laga daahiriyay wasakhna laga daahiriyay sidoo kale tana siyaada iyo nusqaana laga daahiriyay bi aydi safaratin malaa'ig gacmahooda ayay dhexdooda ahaatay bi aydi safarada waxa la yiraahdaa waa malaa'igta safiirada ah malaa'igta irgada ah ee ilaahay soo diro ee adoomada iyo alla u dhaxaysa ayaa la yiraahdaa safara saas macnaha yani safiiro ama safarada waxa laga wadaa bimaana kataba malaa'ig wax qorta oo qorayaal ah ayay gacmahooda ku jiraan quraanku gacmay suxuftan gacmahooda ku jiraan bi aydi safaratin malaa'ig wax qorta ama malaa'ig safiiro ilaahay soo dirsaday ayay gacmahooda ku jiraan suxuftaasi كرام ملائكة سوى وناكسن أو يعني وحويان صوصوبانو إلهي أكتيس تبارك وتعالى لكرامي وشرف له برارة أو باريال يعني وحويان أتقياء وإلهي أمر كيسان خلاف لا يعصون الله ما أمر وأمر إلهي متشبيان وباريال ومعنى ملائك نوعاس أي قعمه ذو كتشران معناه وحلقها الله يهلكن قرآنك آياتك إلهي الشرف توضع لقاها الله sida ilaahay u sharfay tabaaraka wa tacaala quraankan iyo suxuftu ku qoran yahay wuxuu rabbi tilmaamay tabaaraka wa tacaala inuu ku qoynay inay yihiin kuwa la karaameeyay suxuf iyo waraaqo sharaf iyo qiimo leh ilaahay agtiisa lagu karaameeyay oo la maamuusay ayay ku yaala quraanku ku yaala la kor yeelayo qadarkeed iyo sharafkeedu sareeyo la daahiriyay oo wax lama siyaadiyo sidii ilaahay u soo dajiyay waxba laguma siyaadiyo waxna lagama dhibo siyaado iyo nusqaan baa laga daahiriyay waxa kale oo laga daahiriyay waxa la wixii wasakh oo dhan iyo wixii qashin oo dhan waa laga daahiriyay suxuftaasi quraanku ku qoran yahay malaa'ig baa haysa malaa'igtaasi alla wuxuu ku sifeeyay horta waxbay qoraan way qoraalka yaqaanaan waxa kale oo culimada qaar kood leeyihiin ma aha waa safar bimaana وصفيره ومحو هاي وملائكته إلهي وحيك كسو قادة أما إلهي أوامرتي سو قادة أدومد سو غارسيسا فوليسا حول بالله سو حلساري marka malaa'ig noocaasoo safiira oo la soo dirsado ergooyina ayay gacantooda ku jira malaa'igtii baa la siisay hadana waa malaa'ig sharaf leh oo karaamo leh ilaahay karaameeyay tabaaraka wa tacaala abuurkooduna waa karaamaysan oo nuur bay ka samaysan malaa'igtu ka abuuran
dabeecadooda iyo dhaqankooda iyo afcaashooduna way karaamaysan tahay oo iyadana sharaf bay leedahay laana wax weeye khalad ma sameeyaan khaladna kama yimaado xumaanna kama soo fusho waa bararatin waa baariyaalo ilaahay bay tabaaraka wa tacaala ateecan mana caasiyaan waa atqiya ilaahay tabaaraka wa tacaala malaa'igtu sidaas weeye malaa'igtu sida bini aadamka oo kale maaha iyo jinka oo kale maaha jinka iyo malaa'ig iyo bini aadamka iyo jinku ilaahay bay caasiyaan mar waa hagaagaan qaar mar ilaahay bay caasiyaan qaarkood ilaahay bay cisyaankiisa ku jiraan qaar muxuu ahay waa hagaagsan ku hagaagsan laftoodu marka qaarkood way yara qaloocanayaan mar bay ka siid calaynaysa laakiin malaa'igtu iyagu mar walba ilaahay bay adeecayaan tabaaraka wa tacaala bararawe kala ka jooge arinta aad samaysay ka joog innaha ayadu suuradani tadkiratun wa waano faman ruuxi shaa doona dakarahu wa xusuusanaya quraanka waa kuwaana qaadanaya fi suhufin buu ahaaday waraaqa dhaxdood mukarramatin oo la karaameeyay oo la maamuuso la sharfay ilaahay agtiis marfuucatin oo la kor yeelay mutahharatin oo la daahiriyay biaydi safaratin kuwaasoo malaa'ig safira gacmahooda ku sugan ama malaa'ig wax qorta kiraamin malaa'igtaasoo wanaagsan oo sharaf leh bararatin oo baariyaala inta markii laga soo gudbay quraankii iyo suuradan iyo ilaahay aayaadkiisa qiimaha inta leeg loo yeelay kadib waxa halkan laga guda galay marka qutila al-insanu ma akfarahu bini aadamka sida ilaahay uu tabaaraka wa tacaala ugu nicmeeyay iyo nicmada ilaahay sidoo ugu jisaarayo sid abaal xumadiisa sida uu ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ugu nimceeyay laga bilaabo abuuristiisa ilaa quudintiisa gacan ku hayntiisa nicamkan ilaahay siiyo tabaaraka wa tacaala iyo hadana dhaqan xumadiisa ayaa laga hadlaya halkaas laga bilaabo الإمام محوها ابن كثير وحليه ملائكة صحفة القرآن كحنبارسا ما دام أي برريهن كرامة الشرف له روح القرآن كحنبارسا نوحى للدنيا إنه ساسو كلا نقض باري هذانا تقيه قرآن ككو عمل فلا وكي النبي يقول صلى الله عليه وسلم روح القرآن كيقان ماهر كأه السفي عن قرآن كأو يقانا ملائكة بررده كرامته وناكسن بولا جيران كوديه روح القرآن ك يعني أخرنا لكن كفية يعني وحويان يعني كرفاتنا لما أجير بوليه النبي صلى الله عليه وسلم مرك القرآن كهدي إلهي كبري وإن دقن كيسي وناجيس لجاه لوا قتل ولا لعنذي الإنسان إنسان كي ولا لعنذي إنسان كان لجاه الله يو وإنسان كإنكرسن إسسو صاردا إسسو صاردي إن لصو صارد دونه لا أبال مرين دونه لا حساب تمي دونه يو إنكرسنيه وحي بأمرك وحويان أدلة الله سمينيه قتل ولا لعنذي الإنسان إنسان كي ما شيء عجبا أيا أكفره قال نما بنيسيي شيء لا يابله أيا كافر يا كافر كدغ معنا ماذا ستعجبنا ولا يدي كرا استفهامينا ولا يدي كرا أما ما محيبا أكفره قال كدغ قال كيال من أي شيء حقيسة أيو خلقه الله كأبوري شيء كيسيبا خلقه الله وإساق كأبوري بل شيء لغا أبوري إيو كسو جيدا أسل كيسا أوفير سوا ولغا جوابو حليل من نطفة عن طوف منيئة حق يدا أيو خلقه الله كأبوري خلقه من نطفة فقدره مركاسو الله قدري وكان قوي حلقا وذا قدره وشرح دونا ثم مركا كدب مركو قدري oo la isku hagaajiyay oo la jaangooyay as-sabiila jidkii ayuu yasarahu u fududeeyay thumma marka kadibna amaatahu wuu dilay oo geeridiisii baa ku timid fa aqbarahu qabri ayuu u yeelay dhulka korkiisa lagama tagine haddana waa la karaameeyay hadduu dhintayo dhulka hoostiisa lagu asturay thumma marka kadib idaa goortii shaa uu doono alle ansharahu wuu soo saari markuu doonana oo waqtigiisii la gaadhana meeshii lagu aasay la geliyay baa dib looga soo celinaya oo dib baa loo soo nooleynaya kala ha ka jooge kala ha ka joogo xumaanta ha joojiyo ama kala arinku sama sida ibn jariir uu leeyahay laysa al-amru kama yaqulu al-kafiru min adaa'i haqqi Allah arinku ma aha
sida uu gaalku sheeganayo oo xaqi ilaahay inuu gutay arrinku ma ah kalla sama ama kalla ka joogi lamma yaqdi muusan gudanin insaankii ma shaygi amarahu alla uu amray isagoo la abuuray oo wanaagaas oo dhan loo sameeyay haddana amarkii ilaahay muusan gudanin waajibaadkii faraa'idii la saaray iyo xaqi ilaahay muusan gudanin falyanzur al-insaanu mimma khuliq falyanzur al-insaanu ila ta'amihi inta marka waxa laga hadlay bini aadamkan madaxa adag ee ilaahiisa isku taagaya ee khaaliqii abuurtay inkiraya ee xaqi ilaahay soo dejiyay la dagaalamaya ee wixii loo sheegay iyo waxyigii rasuushii loo soo diray cagta ku dhufanaya ku gacan saydhaya ibni aadamkan bal sidiisaba habaarka qaba bal meeshuu ka soo jeediyo wuxuu yahay soo isweydiin ma mudna haddii la fiiriyo dib loo fiiriyo loo fiirsado meeshuu ka soo jeedo iyo waxa uu ku dhaqmayahay isma laha waa yacni nicmadiid iyo gaalnimo iyo kufri iyo madaxadayg iyo juxuud waa maxaa keenaya waa bal maxaa laga abuuray ha u fiirsado min ayi shayin khalaqahu muxuu ilaahay ka abuuray haddii dib loo fiiriyo dhibic mani ah ayuu ilaahay ka abuuray yani wax weeyaan manida ragga ka timaada marka kadibna ukunta hooyada la falgalaysa halkaasuu ka abuurmaya waliba dhibicdoo dhan meehee dhibicdaasa wax yar laga siibayaa xayawaanka minawiga ah ee bini aadamka yani waxa weeye abuurkiisa sababta u yahay aabbaha ka imaanaya kadibna la falgelaya ukunta hooyo la falgelaya taasaa laga abuuray shayga laga abuuray marka waa shay liita min maa'in mahiin waa biyo liita oo muxuu ahaayey jilicsan oo aan qiimo lahayn oo marada markay kaga gaadhaan aad iska dhaqayso oo jirkaaga aadan u ogolayn oo wasakh ah waxaasaa laga abuuray markii la abuuray kadibna faqadarahu ilaahay baa qadaray qadaridaasi laba macnaba waa laga dhigi karayaa in la yiraahdo alla tabaaraka wa tacaala wuu jaangooyey wuxuuna u diyaariyey wixii uu munaasib ku ahaa iyo maslaxadiisi oo waxay la mid noqonaysaa yani wa khalaqa kulla shay'in faqadarahu taqdiiran oo kale la mid noqonaysa ama sida ibnu kathiir uu leeyahay waxay noqonaysaa faqadarahu alla wuu qadarayo wuxuu qadaray markii la abuuray isagoo uurka hooyadii ku jira xadiid baana ku tusaye ayaa waxaa la qadaray oo la qoondeeyey ajashiisa cimrigiisu intuu noqonayo risiqu cuni lahaa camalkiisiiyo wuxuu samayn lahaa inuu ahlu naar yahay inuu ahlu janno yahay waa la qoondeeyo waa la qorsheeyey faqadarahu wax walbo isaga ku saabsanna waa la qadaray waa la jaangooyey waa qadaran yihiin halkaasaa ilaahay dhigay tabaaraka wa tacaala wax qorshaysan waa markii kadibna caloosha hooyiya uurka hooyiya makaanka markuu muddadii ku qaatay wax walbo isaga ku saabsanna la qadaray oo la qoro la qoondeeyey markaa kadib ayaa alla tabaaraka wa tacaala haddana wuxuu u fududeeyey jidkiibuu u fududeeyey laba tafsiir baa jira mid wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa jidkuu hooye kaga soo bixi lahaabaa ilaahay u fududeeyey ficlanna macnahaasi waa macno saxa maxaa yeelay ilmuhu markuu uurka hooye ka soo baxayo meesha uu soo marayo waa meel cidhiidhi ah ilmo 3 kiilo ah 4 kiilo ah 2 kiiliya badh ah ayaa meesha cidhiidhiga soo maraya haddaan ilaahay fududayninna ma soo mari karo haddii adduunka khubaradiisu isu tagaan ma soo marin karaan haddaan ilaahay fududaynin tabaaraka wa tacaala uma sabiila yassara jidkuu hooye kaga soo baxay baa haddana loo fududeeyey waa macno wey in la fududeeyo waxaad ku garanaysaa shayga sidiisaba meeshuu hal mar soo maray waa lagu celin karaa haddii hadda la yidhaahdo ilmaha hooye ka soo baxay mar labaad dib ha loogu celiyo laguma celin karayo marka taysiir rabbi baa ku jira jidkii baa la fududeeyey macno waa macnahaas waaye macnaha labaadii wax weeye in la yidhaahdo summa sabiila yassarahu jidkuu mari lahaa ayaa loo fududeeyey oo khayrkii iyo sharkii labadii jid midkuu qaadi lahaa ayaa loo cadeeyey oo loo fududeeyey macnahana waa midoo waxay noqonaysaa marka inna hadaynaahu sabiila ila macnata jidkii baan u cadaynay labadaa jid ama kan qaad ama kan qaad ayib uma markaa kadibna amaatahu allaa dilay maxaa laga wadaa markuu dhimanayo wakhtigiisu dhammaado amar xagga ilaahay ka yimid buu ku dhimanaya nafina wakhtigeeda ka hormari mayso ayib
harku had dhintay markuu dhintay haddana lama tuurin oo banaanka laguma tuurine Allah tabaaraka wa tacaala qabri buu u yeelay waa karaameyn kale waay yani bini aadamka kiisa gaalka iyo kiisa muslimka toona dhulka korkiisa lagaga tagi maayo markuu dhinto hatta gaalada haddii iyagu is-aasi waayeen oo gaalkan wax aasan la waayo oo gaaladiisii iyo qaraabadiisii ah waxa aasay muslimiintu inay aasaan waay waa in yani dhulka la geliyo qabri buu ilaahay u sameeyay waa karaameyn kale waay markii uu muddo ku jiro maqnaado qabriga ku jiro waqtigii loogu talagalayna la gaadhana thumma idha shaa ansharahu markuu doono alla dib u soo celino uu soo nooleyn su'aashu marka waxay tahay war Allah halka ka soo bilaabay ee sida uu abuuray ee inta soo mariyay inuu mar laba dib u soo celiyo maxay ku tahay waay wax culus ba sidaas way macna ibni aadamka inta loo sameeyay kalla lamma yaqdi muusan gudanin ma amarahu wuxuu ilaahay amray waxay ahayd inta hadii loo sameeyay ya abaalku wuxuu ahaa inuu abaal gudo abaalku waxa weeye inuu rabbigi ateeco inuu aqoonsado waa la abuuray halkaas la soo mariyay inta soo marxala la soo mariyay gacanta la igu hayay ilaahay baa ii fududeeyay ilaahay se inuu aqoonsado laakiin kadibna uu amarka ilaahay iyo sharcigiisa fuliyo maya waa ka madax taagay kalla lama yaqdi ma amarahu amarka ilaahay ma uusan gudanin halka culimada qaar waxay leeyihiin hadii insaanka oo dhan laga dhigo gaalka kaliya aan laga dhigin waxay noqonaysaa muslimka laftiisa amarkii ilaahay siiyo dhan ma wada fulinin bini aadam baa leeyahayo mar walba galab iyo wax ka khaldama la waay maayo inta kadib Allah tabaaraka wa tacaala mar kale waxa la yiri bal hafiiriyo bini aadamkani cuntadiisu say ku timaado falyandur hafiiriyo al insanu insanki ila ta'amihi cuntadiisi quudkiisa bal hafiiriyo see ku yimaada annagu hafiiriyo sababna inaan soo shubnay almaa bihi sabban shubid bihi inaan samada ka soo shubnay bal hafiiriyo haw fiirsado way thumma markan bihi soo shubnay kadibna shaqaqna waan jeexnay al-ardh dhulkii baan jeexnay shaqan jeexid bihi dhulkay galeen abuurkii dhulka ku jiray iyo wixii dhulka hoostiisa ku jiray bay gaadheen kadibna wixii dhulka ku jiray baa soo baxay carradii baa kala dildilaacday si ay u soo baxaan doogan iyo dalagani uga soo baxo dhulkii baa la baneeyo la dildilaaciyay wayla wax weeye waxaan soo baxayay dhulka ma jeexi karo isagu geed yar oo jilcisan oo curdun ah oo markaasi muxuu ahaaye dhulka hoostiisa ka soo baxayay carradaad adagtay inuu isagu kala jeexo madaxa la soo baxo suurtagal ma ah laana waxa ma awoodi karaba laakiin jeex rabbi baa ku jira thumma shaqaqna al-ardh shaqan dhulkii baan dildilaacinoon jeexnay si ay uga soo baxaan yani dalagii iyo doogii iyo geedii wixii ka soo bixi lahaa fa anbatna markaasan soo saarnay fiiha dhulka dhexdiisa waxaan ka soo saarnay habban waa badarka waa raashinka cuntada asaasiga la cuno waa bariiska iyo wuxuu ahaay qamantida iyo masagada iyo yaryareyda iyo badarka waa habbantu wa cinaban baan ku soo saarnay iyo cinab waa canabka waa wa qadban iyo yani nabaadka isaga oo qoyan oo curdanka ah la cuno waxa loo badan yahay inuu yahay xooluhu waxay cunaan waxa la yiraahdaa geed waxay ku fasiraan leeyahay alfisfisa oo xooluhu cunaan waa yani geed curdan ah oo jilicsan oo nabaad ah oo dhulka ka soo baxa waana la beeraa hadda looda la daajiya xooluhuna waa daaqaan loodu markay daaqdana aad bay u darartaa يعني وحوي برسيمنا ولا يدهدا البرسيم الحجازي يو كلا بحا مركا جيد نوع سواي مركا حولها داقة وداقة حولها ورأي كلا وحوليها مفسرين تقاركود محل ما wax kasto oo isagoo qoyan la cuno ama bini aadamku ha cuno ama xooluhu ha cunana baa la yiraahdaa yani wax way qadbiga la yiraahdo oo markaasi kabajki waxay qoyaanka lagu cunay ayaa soo galay wa zaytun baan ku soo saarnay zaytunku waa yani idaamkii waa zaytunku ma aha kan zaytunka anaga noqonaan kan anaga aan zaytunka jawaafa la yiraahdaa zaytunku waa kan saliida laga miiro oo inta badan Shaam ka baxo iyo Spain iyo dhulka ka baxa yani wax Andalus ka baxa kaas la yiraahdaa marka isaga waxa meesha loo keenay idaamna wuu noqdaayo waa saliid heed raashinka lagu idaantaa waliba barakaysan dhanka kalena waa lagu subkadaa طيب ونخلا بان كو سو سارنay ونخلنا وان سو سارنay dhulka dhexdiisii nakhlan biyihii soo dagay waxaan ku soo saarnay geeda timira
waxadaa'iqa iyo aseendooyin beero waaweyn gulban oo kulansan yani wax weeye waaweyn ama yani wax weeye laamahoodu ay isgaleen gulbiga waxa la yidhaahdaa yani ninka tunka weyn ruuxa tunka weyn ee yani garbaha inta u dhaxaysa aad u weyn baa la yiraahdaa gulbiga la yiraahdaa asalkeeda waxaana laga wadaa geeduhu markay aad u waaweyn yihiin jiridoodu weyn tahay adag yihiin ayagu haddana kulmaan oo isdhex galaan ayaa la yidhaahdaa waxadaa'iqa gulban waa aseendooyin geedahoodu waaweyn yihiin oo weliba ay kor u baxeen way haddana isdhex galeen waa faakihatan baan soo saarnay faakihadii waa waxyaalaha midhaha lagu faakahaysto qudaarta yani wax way cuntada asaasiga ma ah laakiin waa lagu faakihaystaa saas way macna wa abban baan ku soo saarnay daaq abigana isagana daaq baa loo badan yahay inuu xooluhu ay cunaan intaasaan iyadana ku soo saarnay abigaasi xadii waxa sugan athar Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardaa inuu suurada akhriyay markuu soo gaaray halka ayaa wuxuu yiri qad arafna al-faakihata fama al-abu faakihada garanay abigani muxuu ahaa buu yiri waa Umar baa isweydiinay markaas wuxuu yiri la'amruka ibn al-Khattab in hada lahu takalluf isagii hadana isu jawaab wuxuu yiri adiga hadaabad garatayba inuu yahay nabaad ilaahay soo saaray intaaba hadaad ka fahantay wixii inta ka dambeeyay noocu yahay inaad si tafaasiil si raadiso waaba takalluf buu maxaa ku diray adiga maqsuudka fahantay way macna maqsuudku waxa weeye waxyaalaha ilaahay soo saaro adoomadiisa ku galadaysanayo inay ka mid tahay fahantay inta kadib inaad si aad takalluf weeyaan buu saas way macna adiga abigaasi inuu daaq yahay sidaas ay ku fasiraan culimada qaar kood intaas waxaan u sameeynay buu alla yiri mataacan raaxayn lakum idinka la idin raaxaynayo iyo wali an'aamikum xoolihiin idinka la idin raaxayn qaar idinka cunaya qaarna xoolihiina daqataan baa cunaya idinkay raaxa idin tahay marka oo la idinku nimcayn la idinku barwaaqaynay tanna waxay marka la daliil u tahay Allah tabaaraka wa ta'ala intuu biyaha kor ka keenay dhulka daaqa ka soo saaray dalag ee dhulkii oo meeyda nooleeyay waxay u fududahay oo aan ku adkayn inuu idinkana marka dhimataan kadib dhulka idinka soo nooleeyo idin soo saaro tayib inta markii laga baxay kadib baa waxa la guda galay qiyaamada iyo dadku say noqon doonaan iyo sida loo qaybsami doono in laga hadlo fayda goorti jaad ay timaado as-saakhatu ti yani wax way qayladeedu wax dhaga tirays saakhada wax la yiraahdo midii wax maqashiinaysayna waa la yiraahdaa midii qayladeedu ay darnaydee dadka dhaga tiraysayna waa la yiraahdaa waa afuufista buunka la afuufayo ama qiyaamadana waa la yiraahdaa labada waa lagu fasiraa markay timaado yawma maalin ay timaado yafiru cararayo almar'u ruuhu min akhihi walaalki buka carari wa ummi hooyadii buka carari wa abihi iyo aabihi wa saahibati iyo xaaskiisa wa banihi iyo wiilashiisa likulli imri'in ruux kasta waxa u sugnaaday oo minhum iyaga kamida yawma idin maalinka sha'nun arrin baa u sugnaaday oo yuqnihi ku filan kaga filan wax kale oo dhan tayib maalinka markay timaado waa la kala cararaya lababa waa loo kala cararaya ruuxul batiisa haysata tu kalena kan shabaab uma hayo waa mid labaade dadkii eheladiisa aha wuxuu uga cararayaa ama wax ku qabsadaan laana maalinkaasi ruuxu wax ka dhacsan kara ama wax ka daadsan kara waa ku tacalluqaya saas daradeed kii aad taqaanay iyo ehelkaagii iyo kulli waxaad ka cararay ama wax ku qabsadaan dhanka kale weeye waxaad uga cararaysaa taadaaba ku saaqatayba taada ka siid calisto taada ku haysata sidaas way macna sida loo dhigay waxa la hormariyay walaalkii waxa lagu xijiyay hooyadii waxa lagu xijiyay aabihii waxa lagu xijiyay xaaskii waxa lagu xijiyay caruurtii waxay leeyihiin culimadu tartiibkaasi loo kala hormariyay waxay ku tusaysaa bini aadamku suu u kala jecel yahay waxa dii lagu yiraahdo walaalkii buu ka cararay bimaana waxa dhici karta inaad walaalka ka cararto laakiin aadan ilmahaaga ka cararin tayib marka walaalkii baad ka carartay laakiin waxa la isweydiinaya tayib hooyadii ma ka cararay markaas la yiri hooyadiina wuu ka cararay hooyadii hadduu ka cararay wali waxa tagan mid hooyadii ka cararay aaba ka cararin baa jiree aabana ma ka cararay waxa la yiri aabiina wuu ka cararay kuwa kasii hooseeya jira marka oo kaasii xiga oo iyaga lagu nafbaxo kuwii baa hadana la keeno waxa la yiri xaaskiisiina ka carar waxaan marba rag baa saxaska ka carar laakiin caruurtaan ka cararin caruurtii baa la yiri hadana caruurtii baa ka carar meeshaasi waxa weeye naftaada la baxsaba sida la isu daba dhigay bimaana waxay ku tusaysaa bay leeyihiin bimaana say
يعني أكل فوقايين بالو يا لوكل هرمري لأن روح سويدينيا مربى مد مقدم تدني بالو سوى معنا سيدا سويا ما حصل الله يلي ما الله كلا عرّا يروح البتيسا كفلا حديث باميشا كسو عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي مركو صلى الله عليه وسلم دتك مالنت قيامة الله سو كل من دونا أيوه قاقاون أو كولا أو أردن أو محوها هاي بوريا قبأ أيا الله سو كل من دونا واللي سكين دونا مركاسي تيري محوها ورسولك إلهي صلى الله عليه وسلم ماي يا صرقي ضمرك استعون ولا قاقاون هاي مركاسو النبي صلى الله عليه وسلم عايشة أرنتو أنت وكدر انتهي روح والبمالك تيسا هيستا روح كان شأوها إنه ضد قاقاون دا داوض والله زوما مركا لدن تهي بعد وحفير فيرسا وحدا داوتا لكن مركي adiga lagu soo dhigto rabbi sallim orad baad gali ya ar ishaad waxoo ma qabanayso marka isdaawasha maalinka ma joogto way macna likulli imri'in ruux kasta waxa u sugnaaday oo minhum iyaga kamid ah yawmaydin maalinka sha'ni arrin baa u sugnaaday yuqnihi oo ku filan oo kaga filan ama ka deeqaya wixii kale oo dhan kaga filan laba loo kala baxaya marka waa meeshii ugu dambeysay la tagay wujuhun wajiyal marka yawmaydin maalinka musfiratun ومد افتيمي سوا ضاحكة أو قسليس مستبشرة أو بشاريسانيس ووجيدي دتكي وناكسنا مؤمنين تي صالحين تاها وجيدو دمالين كاسي وافتيميا إن افتيمان وحا كينيا قلبي قودي أيا فرحسن فرح قلبي قودي كتشر أيا وجيغا كموقنيا وجيغ با افتيمي ويقسليس ضاحكة وحا هرتي ديالية برواقد إلهي سيين حريستا هي جنة يوحني كو قسليس مستبشرة وي بشاريسانيسا يعني بشارة قلبي كجرتا يا وجهنا كم موقته ووجوه وجياله يومئذ وقالدي منافقين تي انت لها الماش ووجوه وجياله يومئذ مالك عليها كركيده waxa ahaatay ghabaratun siigo iyo bus iyo siiga qarisay tarhaquha waxa dabooleysa qataratun mugdi iyo madow waa foolxumo meeshii ugu dambeysay bay yiraahdaan wajiga intay carra iyo bus ka fuush haddana in mugdi iyo madow la sii saaro labadaas la isugu daraya yeeyihiin ulaa'ika kuwaas hum iyagu al-kafaratu wa kuwii gaaloobay gaaladii waay al-fajaratu ifajiriinta al-kafaratu waxay leeyihiin waa qulubtooda kufriday al-fajaraduna wax way acmaashooda ayaa fujuur ahayd qalbigooduna gaalay ka hayeen qalbiga xubnahana macaasi iyo dunuub iyo xumaan bay la yimaadeen marka al-kafaratu fi qulub al-kafaratu qulubuhum wa al-fajaratu fi a'malihim sidaas marka lagu gabagabeeyay labada mid baa la noqon doona natiijada aakhirana sidaas weeye bini aadamkan ilaahay tabaaraka wa taala abuurayna ee abaal ka abaal dhacaya ee ilaahay tabaaraka wa taala bedelkii inuu ku shigriyo nicamkiisa ku aqoonsado loo baahna la kari la yahayna asagana halkaas u dambeyn doonta hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم شيخ إلهي سبحانه وتعالى أجرا نسوكو بكر إلهي سبحانه وتعالى كسيو شيخ وحاجر دور سؤال أو دتك كحرا بيجك مسجدك سيجسك أي كوسو قرين سؤال شكو بدو حيلة هاي وحا إيجا وريرسن طبعا وقبر وحيلة وحا إيجا وريرسن عاددي أو لبضي أما سدح ذي مالين وإيجا تمادا dhiig furana ma aha oo waa caadadii waan aqaanaa sheekhow sidaan u soomaa bismillaahir rahmaanir rahiim haddii aad hubto inay caadadii tahay intay caadadaasi jirto mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana caadadu sax way wareertaa inay wareertana inta badan waxaa keena waxyaalaha ay isticmaalaan dumarku oo u badan waxyaalahan ama dhalmada lagu kala fogeeyo ama dhalmada lagu gooyo waxyaalahaas inta badan keena inay caadadu wareerto almuhim haddaad hubto inay tahay caadadii oo wareersan oo ku haysa intay ku hayso mana soomi kartid mana salaadi kartid ninkaaguna kuma banaana sidii adoo caado qabo oo kalaata wallahu a'lam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh anoo sooman madaxa ma iska toobi karaa masalada toobinka waa masalo khilaaf ku jiro fuqahaada dhexdooda
soonka ma jabiyaa mise ma jabiyo waxaa la mida dhiig badan in jidhka laga saaro xadiid baa nebigu sal alla alay wasalam sugan uu leeyahay nebigu wuxuu soo maray laba nin oo istoobaya kadibna wuxuu yidhi aftara alxaajimu waalmaxjuum kan toobaya iyo kala toobayaba waa afuray soonkii waa ka jabay xadiidkaasi fuqaha badan baa ku tegey oo inuu toobinku soonka jabinayo xadiid kalaa jira oo anas warinayo oo uu leeyahay arrintaas oo inuu toobinku soonka jabinaya ah waxaa ka dambeysay nebigu sal alla alay wasalam ruqseeyey oo ogolaaday dadka sooman inay istoobi karaan xadiid kalaa jira bukhaariga ku yaallo nebigu uu leeyahay nebigu sal alla alay wasalam saxaabigu uu leeyahay nebigu wuu istoobay isagoo sooman warka marka la soo ururiyo wuxuu noqonayaa mas'alada toobinka iyo dhiig in la iska saaro inay soonka jabisaa waa laga dambeeyey oo waxaa ka dambeeyey in la ruqseeyey oo la idmay sidaas daraaddeed soonka ma jabinayo toobinka iyo dhiig jidhka ka baxay toona sidaasaa ila xoog badan waase masale khilaafiya wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan ka boogoobay afka oo nabara iga soo baxay dhakhtarkiibaa wuxuu ii soo qoray dawada lagu luqluqdo marka anoo sooman ma isticmaali karaa dawada haddii ay tahay uun luqluqasho kadibna aad iska tufayso dhib ma laha waxaad ku dadaalayiin inaysan hoos u gudbin oodan liqin leanno afka waxyaalaha soonka jabiya hadduu afka galo oo ka soo noqdo soonka ma jabinayo waa luqluqashada biyaha oo kale markaan weysaysanayna waa luqluqanaynaa biyuhu weysada way jabiyaan maalan cunto intaad dhadhamisay aad tijaabisay oo kale aad iska tuftay shay maalan afkaaga galood soo tuftay soonka ma jabinayo marka hadday tahay mujarad luqluqasho kadibna aad soo tuftay hoosna aan u gudbin oodan liqin soonkaagu waxa ma noqonay waad samayn kartaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waa gabar baa soo qorta waxay leedahay aabbahay in badan ma soomin mana salaadin wax cudurdaar ahna ma lahan marka sheekhow ma ii sheegi kartaa qaab aan ugu gudbin kara soonka iyo salaada maxaa yeelay kurbo ayuu igu hayaa hala waaniyo ha loo naseexeeyo hidaayada ilaahay baa haya ruuxaan salaad tukanaynin oo aan soomaynin muslim ma aha salaada keliya tegitaankeeda nebigu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay soonkiina haddana hadduu ku daray uusan soomaynin ruuxaasi muslim ma aha laakiin waxaa waajiba in loo naseexeeyo oo la waaniyo oo si alla sidii wax loogu sheegi karo wax loogu sheego lagu dadaalo ilaahay baa hidaayada iyo hanuunka haya laakiin waxaa dhici karta in ilaahay soo hanuuniyo hidaayada ilaah baa haya yani hadal dabacsan oo aan adkayn oo muxuu ahay sasab ku jiro oo xikmadaysan mar walba waxa loogu gudbiyo maxaa yeelay ilaahay tabaaraka wa tacaala fircoon oon ogeyn inuu ilaahnimo sheegtay ana rabbukum alaclaa yidhi ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu muuse iyo haaruun dirayay calayhim aw calaa nabiyina asalaatu wasalaam markuu u diray wuxuu ku yidhi faquulaa lahu qawlan layinan lacalahu yatadakaru faquulaa lahu qawlan layinan yani hadal dabacsan ku dhaha inuu waana qaataa dhici karta ilaahay waa ogyahay inuusan waana qaadanin fircoon oo gaalnimo ku dhiman doono laakiin rajagelin baa meeshaa ku jirta ruuxa sidiisa marka lagama quusto si kastoo uu dambi badan yahay si kastoo u khariban yahay ruuxa inta uu nool yahay waa suurtagal in ilaahay hanuuniyo marka ku dadaala uun insha allahu tacaala nacam sheekh ilaahay ha ku barakeeyo saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana af carabiga ma garanayo ilaahayna inaan u dan sheegtaan rabaa af soomaali ilaahay ma ugu dan sheegan karaa anoo sujuudsan ma ku ducaysan karaa masaladaasi marar badan bay soo noqnoqotay af aan carabi ahayn salaada dhexdeeda ma lagu ducaysan karaa horaan waxaa ila xog badnayd inaysan runtii waxaan luqa carabi ahayn salaada gudaheeda aan lagu ducaysan karin gadaal dambe baxti dheeraadan sameeyey masalada khilaaf baa ku jira saddex ra'yi baa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin sideedaba ma dhici karto in luqad aan carabi ahayn salaada dhexeeda duco ama si kaleeta ay usoo gasho ra'yina wuxuu leeyahay maya xataa hadduu carabiga yaqaano wuu ku ducaysan karaa luqooyinka kale ra'yina wuxuu leeyahay maya haddii uusan ruuxu uusan garanaynin
carabigii uu xaajadiisa ilaahay ugu bandhigan lahaa salaada dhexdeedana khaasatan markuu sujuudsan yahay wa aqrabu maa yakuunu alcabdu ilaa rabbihi yani waqtiga rabbigii ugu dhow yahay way ducadana ugu dhowdahay in la aqbalo faqaminun an yustajaab waa xilligay ugu dhow yahay in ilaahay ka aqbalo marka halkaasuu rabaa inuu baahidiisa iyo duruuftiisa ilaahay u sheegto oo baryo luqadii carabiga ahaydee ku saacidayn lahaydna ma garanayo waxay leeyihiin xaaladaas iyada oo kale culimmadu waxay leeyihiin waa loo ogolyahay markaa inuu luqad kale oo aan miduu garanaya oo aan carabi ahayn inuu ku ducaysto ra'yigaas baa marka dhexdhexaad ah qolada wada diidan iyo qolada wada ogol iyo qolada cidda uun aan carabiga garanaynin u ogolaanaysaa saddexaasaa laysugu khilaafsan yahay tana marka dhexdhexaada leanna waxaa jirta ruuxu markuu wixii laasimka ahaa waayo marar badan bay shareecadu waxay u ogolaanaysaa wax kale ay siinaysaa xataa waxay leeyihiin waa ka nebigu sal lla alay slam ruuxu markuu faatixada uusan aqoonin yani adkaar kale loogu bedelo ilaa faatixada uu ka baranayo laakiin waxaan dhihi lahaa maadaama hadalba galay way fududdahay in ducooyinka carabiga la bartay jawaamicda ha lagu dadaalaan dhihi lahaa insha allahu tacala iyaga hala barto wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh awal masaajidii ayaan taraawiixda u aadi jirnay masaajidiina waa la xiray laakiin xaaskayga ayaa qur-aanka xifdisan iyada ma i tujin kartaa hadday maya tahay aniga inay i tujiso caruurta ay dhashay oo wiilal ay ku jiraan miyay tujin kartaa xadiis baa jira abu daawuud iyo keyrka ay warinay ahlu sunanka xadiidu muwaraqa waa xadiis sugan muwaraqa gabadh waxay ahayd saxaabiyaadkii hore oo qur-aanka baratay ninkeeda iyo caruurteeda iyana maysan aqoonin qur-aanka qadarkii la rabay ama marka nebigu wuxuu ku yidhi sal wuxuu u ogolaaday ama u idmay in ay ehelkeeda guriga inay tujiso maadaama iyadu qur-aanka ay taqaano halkaasay fuqahada qaarkood ka qaadanayaan haddii ay maamada gurigu qur-aanka taqaano ninka iyo caruurtuna aysan aqoonin in ay tujin karayso oo xadiiskaas umuwaraqa ee sunanka ay sunanku wariyeen oo xadiis saxiixa ah ayay u daliishanayaan culimada qaar ka mid ah laakiin waxaan dhihi lahaa haddii xataa qur-aanka wax uga bilaaban yihiin oo qur-aanka uu sixi karayo misxafka si fiican uga akhrin karayo hadda way fududdahay yani waxa weye mobaylkayba qur-aan ku jira ha ka tukado isagu ha tujiyo yani waxa weye misxafkana qur-aanka ha ka akhriyo hadduusan ka akhrin karaynin oo caruurtiisa ay jiraan kuwa qur-aanka yaqaana iyagu ha tujiyeen hadday intaa midna jirin maamadu ha tujiso leanna isaga qur-aankii ma uu garanayo qaar ahaan hadday salaadu salaad tahay salaad ama taraawiix ama salaad sunna a tahay kuma sii jirto wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljaza saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekhana salaada witirka in 3 ragco la isku xiro oo nitaxyaad loo dhexaysiinin iyo in la kala jaro labaduba miyay soo aroortay midna ma laazimi karaa ama inaan 3daba isku xiro ama aan kala jaro hal xabo ma laazimi karaa labaduba horta way bannaan tahay witirka inaad hal ragcada gooni ka dhigto waad heli kartaa 3 isku xidhan inaad ka dhigto waad heli kartaa 5 isku xidhan aad ka dhigto waad heli kartaa 7 isku xidhan waad ka dhigi kartaa 9 isku xidhan waad ka dhigi kartaa kulli dalika nabiga ka sugantahay sallallahu alayhi wasallam haddii aad kala goysood ka dhigto 2 ragcadood oo gooniya iyo hal ragcadoo gooniya waa sida fadliga badan oo dee camal ziyaadaha baa ku jira taxiyaad ziyaaday waxbay wadataa haddaad isku xidhana nabiga ka sugantahay sallallahu alayhi wasallam laakiin taxiyaad dhexda ma gelinaysa maqribka ugu ekaanin marka way banaantahay kulli haddaad mid ka mid ah ku gaabsato waad heli kartaa laakiin sida fiican haddaabad wada garanayso sunnooyinka noocaasa ee nebiga ka soo arooray ee khiyaarka ah waxaa fiican inaad kolba mid qaadato si aad sunnooyinkii ugu wada dhaqanto mar muxuu ahaayey xidhiidhi mar kale goo si alla sidii muxuu ahaayey si aad sunnadii nebiga sal alay slam kulli aad ugu wada dhaqanto ajirkeedana u wada hesho saasaa fiican laakiin hal miduun haddaad qabsato taa uun ku dhegtana dhib ma lah waa la ogolyahay macnaha nacam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay xadiid nebi ayaa wuxuu ahaa ruuxii safka salaada gooyo ilaahay ha gooyo ruuxii xiriiriyana ilaahay ha xiriiriyo haddeer masaajidda kuwooda lagu tukado ama meelaha qaar aan ku tukanno dadkii way kala durkaan oo iskuma soo dhowaadaan markasoo lagama yaabo inaan xadiidkaas habaarkiis uu nagu dhaco
waxaa ka maqan waxa su-aasha soo qoray shareecada axkaamteeda ayaa qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu الاkhtiyaar qaarna waxay ku saabsan tahay xaalatu اlidiraar ama xaalatu اlxaaja markii ayna wax mushkila a jirin oo duruuftu caadi tahay safafka in laysku dhajiyo waa laazim waa waajib maxaa yeelay nebigu sal lla ly slam xadiis fara badan baa kaga soo aroortay in dadku isku dhagaan isku dhowaadaan waa amri jiray muxuu ahaay haddii safafku iskhilkhilaafaanna qulubtu iskhilaaftaa ka dhalan habaar baa ku yimid marka waa in safafka la isku dhoweeyo markay duruuftu caadi tahay hadday timaado duruuf keenaysa in dadku kala fogaadaan jiray kala qaadayaan xanuun baa laga baqay muxuu ahaay khatar kalaa imaanaysa cabsi kalaa timid markaasi waa xaal istinaa'iya waay xaaladda noocaas oo kaleeta marka shareecadu rukhas bay bixinaysaa waxay keenaysaa way raadinaysaa qaab salaaddii jamaacadana lagu xifdiyo dadkii u wada tukadaan mafsadadan iyo dhibkan laga baqayana lagu baajiyaa la raadinaya markaasoo kaleeta way imaan kartaa ijtihaadaadkan ah in la yidhaahdo ha la wada tukado wixii laga baqayeyna si laysaga ilaaliyo looga taxadaro ha la kala durko markaasi xaalad caadiya ma ah nusuustani marka waxa weeye waciidka eedagay soo arooraysa waxay ku soo arooraysaa xaalad ay duruuftu caadi tahay ama hadday caadiga ka baxdo duruuf ay soo kordho istinaa'iya timaado marka iyadu axkaamteeda ay qaadanaysaa taysiirkii shareecada ayay aadaysaa waxay aadaysaa nusuus kaleeto oo markaasi maxaa wiqaaye iyo ku saabsan iyo halkaasay marka aadaysaa nusuus kale aadaysaa tii caadiga ahayd markaasi waxa way ka baxaysaa oo waciidkaasi markaa ma qabsanayo maadaama ay yani nusuus kale ay markaasi ku camal falayaan nusuustii taxadarka nusuuskii cabsida nusuustii matala xaajada iyo daruurada xaggaa la aadaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran su-aalta u yaro dhow waxay leedahay waxaa jira xadiid dhahaya ruuxii aan tukan 3 jimco oo isku xigta qalbigiis ayaa engegaya hadeerna masaajidii way xiran yihiin ma laga yaabaa inuu qalbiga na engego tii horey la mid tahay oo marka ay jumcada ay waajib kugu tahay waa markaad heli karto meeshaad ku tukanaysay aad tukan karto waay haddii aad meeshaad ku tukanaysay la waayo masaajidaad ku tukata la waayo shuruudaheedii la buuxin waayo markaa kadib jumca kuguma waajibaysee duhur baa kugu waajibaya laanna wax weeyaan waciidkan 3 jumca ruuxay dhaafto iyo jumcada ruuxii ka taga waa goorma waa markaad kari karto waa markaad awooddeedii leedahay waa markaad heli karto waay haddii aad heli weydo ama aad weydo ama ay suuroobi weydo marka laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha fattaquu llaha ma statactum waay idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum waay karaan bay ku xidhan tahay iyo awood bay takaaliifta shareecadu ku xidhan tahay haddii awooddeedii aad weydo ama duruufteedii ay saamixi weydo ama duruuftu kuu saamixi weydo marka mukallaf kuma tihid laguma haysto markaa waxaad qaadanaysaa tii ay shareecadu kuugu bedeshay baad markaa ku bedelanaysaa oo ah inaad duhurkii tukato haddaad heli karto meelaad ku tukato jumcadii oo markaasi suurtagal ku ah markaasi waxa weeye adiga khiyaarkaaga markaa aad kaga baaqatood ku dayacdo marka waciidku waa ku qabsanaya markaa wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa'ilkan kale wuxuu leeyahay aabbahay baa wuxuu u dhintay cudurkan coronavirus wuxuuna ka tegey alaabo qaali ah waxaana la dhashay wiil aan qaangaarin dadka qaraabada ahaana waxay soo ururiyeen lacag loogu talagalay tacsi lacagtaa tacsidoo soo aruurtay duqa miyaan u sadaqayn karnaa mise waxay gelaysaa dhaxalkii haddii ay dhaxalka gasho oo la yidhahdaa dhaxalka ha loo qaybiyo wiilkan yarka ee aan qaangaarin ma waxaa la sugayaa ilaa uu ka qaangaaro mise hadda isagoo yarba dhaxalka waan qaybsan karnaa waa dhowr masalo isa saaran waa midda koowaad ee horta odayga dhintay waxa loo soo ururiyey hadday tahay intuu noolaa wax loo soo ururiyey oo soo ururay hadduu yahay noloshiisa ku soo gaadhay isagaa iskale waana laga dhaxlayaa markuu dhinto hadday yihiin wax la soo ururiyey geeridiisa kadib meyd wax ma mulkiyo dadkii soo ururiyey niyaday ugu talagaleen baa markaa lagu bixinayaa hadday dadkii uu ka tegay ugu talagaleen iyagaa iska leh hadday dadkaa qaar ka mida u soo ururiyeen ayagaa iska leh hadday kulli ugu talagaleen kulligood baa qaybsanaya dhaxal ma aha markaas dhaxal ma aha
sidii dadkaa soo ururiyay ee ugu talagaleen mucaawano hadday ugu talagaleen mucaawanadaa ciday ugu talagaleen baa qaybsanaysa laana meyd wax loo soo ururiyo markuu dhintay kadib wax la soo ururiyo ma milkiyo hadduusan milkiyinna lagama dhaxlo taa waa mas'alada labaadi wax weeye dhaxalka caruur aan qaan gaadhin hadday joogaan ma la qaybinayaa mise intii qaan gaadhayaan baa la sugayaa maya waa la qaybinayaa ruux walba xaqiisa ayuu qaadanayaa caruurtan aan qaan gaadhinna cidda mas-uulka ka abaa waxooda loogu dhiibayaa bal iska dhaaf caruur aan qaan gaadhin oo bannaanka joogta iska badaaye ilmaha uurka ku jira lala sugi maayo qaybinta dhaxalka qaab waxaa jira loo qaybiyo oo ilmaha uurka ku jira in la garan maayo ma wiilbaa ma gabadhbaa ma nabad buu ku imaan ma meeshuu ku dhiman lama oga laakiin qaab baa jira cilmiga faraa'idka zaka loo qaybiyo dhaxalka loo qaybiyo oo wixii isaga loogu talagalay ee ku soo hagaagayay ayaa meel la dhigaya kadibna waa la sugaya inta kale dadkii iska lahaa la dhihi maayo kan uurka ha dhashay ma qaybsanaysaan kan haqaan gaadhay waad sugaysaan la dhihi maayo fawran markuu meydku dhintaba dadkii xuquuqdan iska lahaa waa loo qaybinayaa inay qaybsadaan oo ku kala baxaan hadday iyagu sugayaanoo ay isugu sii jirayso waa khiyaar way heli karaan laakiin ciddii tidhaahda waxayga hallaysiiyo anigu ma sugaye la dhihi maayo hebel haqeen gaadho la dhihina maayo uur baa jira ha dhasho qaabkii shareecadaa taqaana qaabkay u qaybin lahayd waa la qaybinayaa markaaba wallahu aclam jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaa jira masjid laga dhisiyey magaalada muqdisho odayaashii guddiga ahaa way dadaaleen laakiin weli waxbaa ka dhiman dhismihii masjidka odayaashii guddiga ahaa waxay istuseen inay u kaashadaan culimo kale oo la ururisa lacagta markay lacagta lasoo ururiyana baasinta laga siiyo culimmadii lacagta soo ururisay arintaana waxaa laga isticmaalaa inta badan tiifiyada soomaalida in culimada wax soo ururiyay lacagta masaajidka soo ururiyay baasinta laga siiyo diinta maxay ka qabtaa haddii ay tahay dad ujara oo la dirsaday laba arrimood bay kala tahay inuu ruuxu marka hore culimonimo iyo weji samafal iyo khayrdoon baan ahay iyo ilaahay dartii baan u shaqaynayaa inuu ku howlgalo kadibna markii wixii soo yimaadaan uu wax sheegto iyo inuu marka horeba nin shaqaysanaya yahay oo uu yidhaahdo aniga shaqadan waan galayaa aan gale waxaan u baahnahay oo shaqadan ku galayaa waqti baan bixinayaa juhdi baan bixinayaa waxaan yani waxaas iyo waxaasa ama wax joogta ama wax baasantii waxa halaysiiyo labadaasay kala tahay hadduu ruuxu marka horeba ujuuro lagu dirsado ama mushaar la siinayo ama muxuu ahaayey wax la isku ogyahay lagu heshiyo saa uu ku howlgalo haddii wuxuu ku howlgalay buu leeyahay laakiin waxa laga maarmaana dadka wax laga soo ururinayo wax laga soo qaadayo waa inay fahansan yihiin ama ay og yihiin xoolaha laga ururinayo qaar ka mida inay u bixi doonaan kharash noocaas u bixi doonaan waxaan aniga kolley xaraj badan aan ka dareemayaa in dadkana loo muujiyo in wadaadku uu muxsin yahay oo ilaahay dartii u shaqaynayo maamulkan masaajidkuna sidoo kale muxsin oo ilaahay dartii u shaqaynayo dadka wax bixinayana aynan ogeyn oo laga yaabo hadday ogaan lahayn inay wax qaadanayaan inaysan wax bixiyeenba dhici karayso meeshaasi waxoogaa waxaa igula jirta shubha igula jirta saas daraaddeed in la caddeeyaa fiican ciddii la dirayo ciddii wax soo ururinaysa ciddii shaqo gelaysa inay caddahay ujuuraday qaadanayso oo ay wax cad iyo heshiis cad uu ku howlgalo ididkiisa wuxuu helo waa nin marka adduunkiisa u shaqaysanaya waa nin adduunkiisa u shaqaysanaya shaar qaadanaya basanti qaadanaya wax raadiisa juhdigaa bixinaya wey sidaana wax ku qaadanaya wey wax laysku ogyahay buu ku howlgalaya laakiin marar badan waxaa dhacda in wixii inta yani la dado layska howlgalo hadhowna ay dhici karayso xoolihii dadweynaha laga soo ururiyey masjid iyagu ay u bixiyeen inteeda badanba inay kharash u kacdo oo wadaadkii wax ururinahayy telefishinkii wax ka ururinahayy muxuu ahay qolihii kaalmaynahayy kulli wixii in la qaybsado kadibna meeshii wax loo ururinaya wax ku hagaagaya inuu yaraado haddii suurada noocaas oo kale waayahan dambe weliba aada u soo badatay waxaa aniga taqriiban qanaacadayda inay khaldan tahay baa ii muuqata wallahu aclam jazaaka allahu khayran laba su-aalood oo ugu dambeysa su-aasheeda koowaad saa-ilkan wuxuu leeyahay sheekh anoo salaada ku jira ayaa hadal iga soo fakaday soomaali ah
si kadis ah anoon is ogeyn marka salaaddii may iga jabaysaa wixii aan ku talagal ahayn salaada ma jabinayo waquumuu lilaahi qaanitiin aayaddaa markay soo degtay baa aamuska la faray saxaabada ridwaanullaahi calayh haddii ruuxa jahli u geeyo ama kelimadu ka soo boodo ama halmaan isagoo ishalmaansan ka soo baxdo salaaddiisu jabi mayso waxaa daliil u ah xadiidkii mucaawiya mucaawiya nin saxaabada ka mid u ahaa nebiga iyo saxaabadiisu la tukanayey kadibna wuu hindhisay nin baa hindhisay ninkii markuu hindhisay buu alxamdulilah yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi yarxamuka allah salaaduu ku jira markuu u duceeyey ayay dadkii fiirfiiriyeen markuu arkay dadkii soo fiirfiirinahayay salaad ku jiray markaasuu wuxuu yidhi hooyadiin idin weyday maxaad iga fiirinaysaan maxaa iga fiirfiirinaysaan buu ku yidhi wuuba sii hadlay marka markuu salaaddii nebigu ka baxay sal alla alay wasalam ayuu u yeedhay markaasuu wuxuu ku yidhi salaada looma ogola hadal muxuu ahaayey si fiican buu nebigu u tacliimiyey sal alla alay wasalam oo markuu leeyahay weligay ma aanan arkin macallin ka fiican nebi maxamed sal alla alay wasalam yani marka nebigu waa toosiyey salaaddii soo celi muusan dhihin salaadda dhexeedu ku hadlay leanna wax wey waxaa u geeyey aqoon darra u geysay marka haddii ama hadal kaa soo fakado ama aqoon darra kuu geyso ama halmaan kuu geeyo salaadu jabi mayso insha allahu tacala wallahu aclam su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeena galabta waxay leedahay sheekh gows ayaa xanuunaya waxay leedahay aabbahay oo dhintay xoolihii uu ka tegey ayaan masaajid ugu dhisnay intaan dhaxal ahaan loo qaybinin ee arrintaa ma saxba xoolaha hadduu meydku ka tago isaga wax looguma dhisi karo loomana sadaqayn karayo allaahuma hadduu dardaarmay oo uu 3 meelood meel buu xaq u leeyahay inuu dardaarmee haddii uu dardaarmay wixii uu dardaarmay dardaarankii waa laga fulinayaa oo 3 meelood meel hantidiisa ah wixii ka siyaadsan maya hadduusan dardaarmin iyo wixii 3 meelood meel ka siyaadsanba dhaxal weeye maadaama ay dhaxal tahay oo markuu naftu saa uga baxdaba milkiyada isaga waa ka wareegaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaabaa milkinaya xoolahan oo isku leh iyagay marka la jirtaa iyagu wixii milkigii ku soo wareegay ee dhaxal u qaateen hadday markaa u sadaqaynayaan way heli karaan waa hadday ehel u yihiin tasarrufka noocaas hadday ehel u yihiin oo ay dad waaweyn oo qaangaadha yihiin hadday qaangaadh yihiin way u sadaqayn karaan way u bixin karaan xoolahoo dhan bay u sadaqayn karaan hadday uu ku jiro caruuraan qaangaadh ahayn hadday ku jirto lama bixin kara iyaga waxooda lamana sadaqayn karayo aabbana looma sadaqayn karo hooyana looma sadaqayn karo dhimatay caruurta yaryarkeen qaangaadhin waxooda ayaga iskale markay qaangaadhaan ayagu ama ha sadaqeeyeen ama iyagu ha isticmaalaan laakiin dadka qaangaadhka ah wixii dhaxal ku soo hagaagay way u sadaqayn karaan dadkii xoolahaasi asalaan ka soo jeedeen ama cid kaleba way u sadaqayn karaan wixii iyaga ku soo hagaagay dhaxalkooda ah wallahu aclam daawadayaal su-aalihii aad noogu soo dirteen bejka masjidka sigiska iyo tafsiirkii ka horreeyeyba ee uu noo soo jeedinayay sheekheena sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llahu tacaala galabtu annaga intaan dib ugu kulmi doona barnaamijkan oo kale ah waxaa idinkaga tegaynaa sida in nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh